السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال كلنتي وعن أو وناكسن مeel kastoo aad dunida aad ka joogtaan kuna soo dhawaada warbixinooyin kooban ee ku saabsan ciyaaraha waxaan saaxiibayaal leegi doonaa tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta Chelsea oo durba bilaabay inuu kala xaraaso xidigaha aan looga baahnayn garoonka Stamford Bridge digrada ayaan saari doonaa maadaama ay tahay warweyn wuxuuna ceelin doonaa ciyaartoon ka badan 13 ciyaartooy oo hadda ku sugan kooxda kubadda cagta ee Blues haddii aad tahay saaxiibka cusub barteenan fadlan subscribe noo saar leegta ishaartuna waa noo muhiim haddii aad tahay saaxiib la joogana fadlan subscribe leegta ishaarta ugu hormari waana ku mahadsan tahay saaxiib la jaanqaadkaaga tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa wuxuu bilaabay inuu kala xaraaso ama kala guro laacibada looga baahan yahay garoonka Stamford Bridge ee kuwa aan loo baahnayn xagaaga nagu soo haya ee 2023-2024 waxa ognahay sanadkan in kooxda kubadda cagta Chelsea ay tahay inay diiradda saarto horyaalka Premier League maadaama aysan dheelayn Champions League iyo Europa League maadaama ay ku dhameysatay kaalmo aan u dhaweyn meelaha lagu soo baxo labada koob ee qaaradda Yurub looga ciyaaro sanad walba saaxiibayaal kooxda kubadda cagta Chelsea wixii sanadihii la soo dhaafay ay ku dhex jiday wareer dhinaca tababarayaasha maadaama tababarayaal badan laga celiyo kooxda Chelsea xilaaladkii la soo dhaafay waxa uu ahaa mid madow maadaama aysan wax guulo badan iyo wax natiijo ah ay ka soo hayeen horyaalka Premier League iyo Champions League ay ugu hareen 8 kooxda Chelsea waxay ahayd koox laga boqo wixii ka horeeyay 2021 laakiin labadii sano ee la soo dhaafay waxay ahayd koox mar walba u nugul kooxda ka soo horjeeda sanadkii dhawaato guulaha ay gaadhay waxa ka badan ama saad uga badan waxa inta ay la soo kulantay guul daro kooxda Chelsea sanadkii dhawaato ma ahayn sanad ay ilaabi doonto maadaama ay ahayd sanad aad u xun oo tababarayaal badan la ceeriyay loo tababarna ay ku soo doomareen kooxda Blues Chelsea hadda waxaa loo magacaabay tababaraha khabiir ah tababaraha reer Argentina ee lagu magacaabo Pochettino waxa uu soo joogay kooxda Tottenham sanado badan waxa uu kala yaqaanaa ciyaaryahanada ku muhiimsan ama muhiimka u leh kooxda Chelsea xagga soo socda waxaan ognahay Pochettino markuu joogay kooxda lagu magacaabo Paris Saint-Germain inuu yiri in kooxdan laga diro saddexdan ciyaaryahan ee waaweyn sida Neymar, Messi iyo Mbappe in diro laba kamid ah sidii uu soo rabo mid hogaamiye ah laakiin waxa ka diiday madaxweynaha kooxda waxa Chelsea hadda gafraha loo galay Pochettino waxa la yiri waxa rabta ka samee horta kaanta waa daayay laakiin hadda Sterling iyo waxa la kala raseynaya يا مونتي iyo rasano baahan rasayn in lagu soo ciyaaryahan tayo leh ee hadeerta laacibka lagu magacaabo Muyanga oo kale nin meesha looga baahan yahay maaha nin Chelsea looga baahan yahay maaha Muyanga waana folowga waana Arsenal ku soo fashilmay waana nin ku soo fashilmay Barcelona mara kooxda Chelsea chance uma hayso chance ay ninkan ku sii difaacdo ama ay ula soo joogo uma hayso Chelsea waxay u baahan tahay hal line intay kharash badan gasho hal line oo the best hal line oo farta ka xiran sida harakiin oo kale in la soo wareegto marka hore waa laga filan karaa markaas waa laga bixi karaa markaas waxay tusi kartaa wax ay Chelsea tahay waxa soo laabanaysa Chelsea 2005 ilaa 2015 Chelsea adkeyd Chelsea laga bixi jiray Chelsea أنا سيدا فوق لو رينجر إيه صلى الله عليه وسلم Chelsea وح إلا أنتو كبحي كوستا هيسي لبعض طفرة بدن أو كم ده سيدا إنا يسن هيسن ويرتوسا أو هيسن عمل تبيسيا إنا يسن أو هيستي مروة وإيماني ويرفلوغا وحصومنا أمياما صومري ويهدوتنا لوكاكو وحانا معنا بدن الهين بعد لا تشوي كوحدة لو مقعبة Chelsea marka Chelsea waxay u baahan tahay dib habeyn hal line striker waxay u baahan tahay fadhiyo oo kooxda wax bedel u baahan tahay
uma baahna Chelsea hadeertaan in ay tahay in loo keeno garab iyo dhex uma baahna Chelsea hal nin oo dhex ah iyo waxa oo striker oo bano qabeeye ah iyo waxa u baahan tahay in weerar kaliya oo nayn ah laakiin qof kale Chelsea uma baahna ya hadda waa arkaya nimankan ninka u fadhiyo suuqa iyo naag baa u fadhida kulay laakiin naagtaas naag ma ahan maskaxda gaar wadan ma ahan Lukaku ka soo bixinaysa intaas mid kale ka keensanaysa wara physical ma eegayso quality ma eegayso wax eegaysa malaha waa ka soo dhagaysa marka Chelsea waxa u baahan tahay qaabayn Pochettino uu balan qaadayba inuu Chelsea hore keenayo inuu dhigkan ka bixinayo Chelsea uu sheegayba marka saaxiib yaal intaas aan kusoo gabeynaa wararkii Chelsea oo hadda ah kooxda ugu saameynta badan horyaalka Premier League xagga suuqa iyadoo ka raadinaysa daafac hal daafac boorte dhex iyo nayn